بسم الله الرحمن الرحيم كلانتي وعنا wanaagsan daawadayaal soo dhawaada waxaan idiin soo gudbin doonaa wararkii ugu dambeeyay xaaladda deegaanka Lughaye iyo colaadii halkaasi ku dhaxmartay beelaha Gudabiirse iyo sidoo kale Ciise dagaal qaraar oo maalintii labaad maanta ka dhacay halkaasi khasaaraha kala duwan ee la soo wariyay maxaabiis la kala qabsaday iyo sidoo kale waxaan idiin soo gudbin doonaa xiisadda oo wali halkaasi ka taagan xilli caawa lagu soo waramayo in gurmadyo markaasi kala duwan oo xooggan dhinacyadu ay heleen taasoo lagu cabsi qabo in ay sii horiso colaadda halkaasi ka taagan wararkii ugu dambeeyay ayaanu guud mari doonaa isla markaana idiin soo gudbin doonaa balse haddii ay tahay markii koowaad ayna soo booqatay soo dhawow muuqaalkan la igale siina sheergare halkan waa Binana News haddii aynu markaasi guda galno xaaladda deegaanka Osali ee markaasi hoostaga degmada Lughaye ayaa lagu soo waramayaa in wali ay kacsan tahay kadib markii halkaasi ay isku fara saareen maleeshiyaad ka soo kala jeeda beelaha Ciise iyo sidoo kale Gudabiirse waxaana halkaasi ka dhashay khasaare markaasi kala duwan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac waxaana haatan markaasi lagu soo waramayaa in xiisaddu ay cirkaas ku sii shirartay kadib markii caawa gurmadyo xooggan ay markaasi u yimaadeen labada dhinac xaaladdan ayaa waxaa markaasi cirka ku sii toshay kadib markii maleeshiyaadka beesha Gudabiirse ay soo bandhigeen ciidamo markaasi maleeshiyaada oo dhaawacyo qaba oo ay ka qabteen ciidanka markaasi beesha Ciise waxaana haatan lagu soo waramayaa in maxaabiistaasi ay gacanta ku hayaan ciidamada markaasi beesha Gudabiirse waxaana markaasi taagan xiisadda halkaasi maanta ay shalayba halkaasi ka taagneyd taasoo ka dhalatay dagaal markaasi labada dhinac dhex maray waxaana dhinacyada midba midka kale uu ku eedeynayaa in isaga uu markaasi xabadda bilaabay oo duulaanka uu soo qaaday ciidamada militariga Somaliland oo aagaasi ku sugan ayaan ilaa iyo hadda wax markaasi waanwaana ama xabad joojina aan halkaasi ka samaynin taasoo si weyn loogu dhaliilay xukuumadda Ciro inay ka gaabisay isu keenidda iyo sidoo kale waanwaanta iyo sidoo kale nabadeynta dadkaasi walaalaha ah ee muddada dheer halkaasi dirirtu ay ku dhex marayso degmada Lughaye ayaa muddooyinkii u dambeeyay waxa ay martigelinaysay dagaallo qaraar argos iyo aanooyin qabiil oo markaasi salka ku hayay dagaallo halkaasi hore uga dhacay oo dhex maray ciidamada markaasi kasoo kala jeeda beelaha Gudabiirse iyo sidoo kale Ciise xaaladda ayaa haatan u muuqata mid faraha kasii baxayso xilli labada dhinac ay markaasi u durbaantumayaan colaad aan la saadaalin karin natiijada ay ku dambeyn doonto balse la hubo in hooyo badan ay markaasi gablami doonto wiilal badanna halkaasi ay markaasi ku laan doonaan ciidamada markaasi kasoo jeeda beesha Gudabiirse ayaa gacanta ku dhigay sida laga dheehan karay muuqaallo baraha bulshada qabsaday tiro markaasi dhalinyaro maxaabiis ah oo ay sheegeen inay ka mid ahaayeen ciidamada markaasi maleeshiyaadka ee beesha Ciise waxaana haatan lagu soo waramayaa in khasaare xooggan oo markaasi dhimasho iyo dhaawacba isugu jira labada dhinac uu kala gaaray inkastoo si rasmi ah loo xaqiijin karin maadaama dhinacyada aagagii markaasi ay dirirtu ku dhex martay weli ay ku sugan yihiin haddana waxaa xaqiiqo ah in dhimasho iyo dhaawacba dagaaladaasi ay ka dhasheen ilaa hadda ma jirto waanwaan rasmi ah oo dhinacyada ka dhex bilaabatay ama xabad joojin markaasi lagu dhawaaqay waxaana labada dhinac ay markaasi qorsheenayaan maalinta berri ah in mar kale weerar ay markaasi midba midka kale uu ku qaado isla markaana dhinacyadu ay dirirta halkoodii kasii bilaabaan haddii aan xal degdeg ah markaasi aan la helin intii caawa haddaad la soo gaartay dhammaadka muuqaalkan waad ku mahadsan tahay daawada fadlan muuqaalkan la igre sina shirgare si dad badan ay xogteena u gaadho